gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabala ayaa maanta kormeer balaaran ku soo gaaray bixiyo goobo kala duwan ay ka mid yihiin garoonka kubadda cagta ee magaalada Caynaba oo dhismihiisa ay xukuumadda Soomaaliland ka wado magaalada Caynaba dhismaha xarunta guud ee ciidamada birmadka gobolada bariga Soomaaliland iyo waliba mashaariic iska wuxuu qabsaa oo dhalinyarada magaalada Caynaba ay ka wado gudaha magaalada Caynaba barnaamijyadaasi ay ka mid yihiin iftiimi magaalada Caynaba barnaamijka cagaari magaalada iyo waliba daam weyn oo ay dhalinyarada magaalada Caynaba ay ka wado duleedka magaalada Caynaba kormeerkaasi kala duwan ayaa barnaamijyadan horumarineed waxa gudoomiyaha gobolka Saraar uga warbixiyay Haldoor Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo isagu gacanta ku haya barnaamijka cagaari magaalada aqoon-yahan Axmed Jaamac Ilaaye oo isaguna ka mid ah dhalinyarada wada barnaamijka lagu qodayo dhaamka magaalada Caynaba iskuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Saraar iyo waliba iskuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Saraar waxayna dhamaantoodba warbixin ka siiyeen gudoomiyaha gobolka Saraar mashaariicahan halka ay marayaan barbilow weeyaan maaha barlamaad waa tobankii geedi u horeeyay balan 1 iyo balan 2 iyo balan 3 ayuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa in magaalada oo dhan aan ku wada dhigno cagaar oo aan mashaariiciyadii soo gudubno iyo muxuu ahaayay meelihii kale ee iskuuladii hadday tahay iyo hadday tahay meelihii kale la wada leeyahay danta guud in dhammaantood sidaas oo kale aan ka dhigno tan waxaan ugu dhalisay markii aan aragnay in magaaladu gebi ahaanba ay dhirtu ay ku yar tahay maaragtay oo aanay jirin wax inta badan dhir fara badan oo magaalada ku taala dhirtuna ay tahay nolosha koowaad ee bini'aadamka anigoo ku hadlaya afkii guddida dhaamka waday waxaan barasaafka cusub gobolka Saraar ku soo dhaweynaynaa isla markaana uga mahad celinaynaa kormeerka iyo u kuurgalka xaaladda dhaamka uu noogu yimi xaaladda dhaamka haddaan kaaga warbixiyo dhaamku wuxuu ka kooban yahay cabir ahaan 52 mitir oo hoosa dhaamkan waxaa iska kaashaday dhalinyarada gobolka Saraar gudo iyo dibadda kaloo iyadana gacan siinaysa dawladda hoose oo cagafta bixisay dhaamkan waxaan ugu talagalnay muddo 2 bilood in magaaladu ay ka cabto dhaamkan mar hore aan sheegay mar labaadna ku celinayo waxa leh bulshada Caynaba oo dhan baa leh kormeerkan saaka gudoomiyuhu uu ku marayay goobaha maxay dhahdaayay ay hawlo ka socdaan ama sida ceelkii weynaa taariikhda Caynaba kale dhaamka biyaha oo kale oo isla hawshiisa socotay aad iyo aad ugu soo dhaweynaa kormeerkaaga iyo hawsha aad maanta u fafaxaydatay inaad ogaato hore markii wasiirka waan gaarsiinay xaaladan wasiirku wuxuu sidaa gudoomiye adigu ka dhawaajisay 100% in laga dhigaaba fiican balastigana waan hordignay taangiga waan hordignay intaba uu nooga ballan qaaday insha Allah billahi kariim qaban doono haddana waan rajeynayaa insha Allah roolka wasaaradda waan dhamaynaa insha Allah hadla وديسا كسو أرقى مشاريع دولة جمهورية الصومال مدن موسى بيه عبدي حكومة ديسا كفر لازم يلعب عقبة ورقرون كبيرة كبدا عكتا والصغراء شركة دي عرمية شركة دي سيسي وعبان صوة مرة قدومية ديسا كسو أرقى وواحد الله أستاذ فرحات الله أيضا نسو كرماري مشاريع دا إسكا وحوق بسيسة لقاء كيكونا بلغيرها كونا كسرار وكم دي دام كانوا كجوب تاجنا وكم دي برنامج كا عقار الدقمة هذا وعلى سوق وسوق الدنيا على بقى ولغنا لما تبدأ مشاريع عاص وحكت الشيء وهو كرمه في الدنيا بلوس هوني اللي سيدر بالقليل وقدام بيننا قدوميها gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabala ayaa dhalinyarada gobolka Saraar iyo xukuumadda Soomaaliland uga mahadnaqay barnaamijyadan horumarineed ka wadaan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar kormeerkan wuxuu u baahan yahay xiriirida hawlaha iyo mashaariicda ka socota gobolka hadii ay wado dhalinyarada sal qaantay hadii ay tahay xukuumadda ina maanta kormeer ku soo oo ay kamid ahaayeen runtii halkii qowdii biiskiisa saldhigga soo kormeeray iyo xaruntii burmadka leeyahay soo maray عبيسي حوار ما يتعب سجنا سوق ولا سوق يعني برامكي كبد عكتا وإنجنير كي لسه يهوشي رنتي لوضي عليه سوق بحل لما يسترنا هو تلاقي وعن كلا سوق مرنا يدنا فنيرد نسبقان عيارين رنتي رب الواح لك قادنا يهرم تأيو عند اللي يرد iyadu ay horseedo in wax la qaban karo waxaan imika dhex joognaa mashruuc ugu baahnaa oo ay runtii dhalinyarada gobolku ay runtii si xil qaantay in ay dhaamka
iyadu bilowdo dhaamkan waxaa loogu talagalay in bulshada Caynaba ay ka cabto sida sheegay 50 mitir hoostana laba balisanad oo hawo markii aanu wasaaradahan intii wasiirka hawlgalay waxaan isla qaadanay in intan laga kordhiyo Salabaan المسيحي سلبان كيكو تلفزيون كعالمي أريال Caynaba